وحلا مدحوينها جيبوتي هي شعب جيبوتي هي دلك جيبوتي وصدر كيس سنوات الصومالي بربرسانيد انت لا دبل جوي عقلي واحتر iyo dareenka walaaltinimo soddonka sano tanatiun bay kamid tahay ilaahay ka jaayisiin doona inagii shirkeena maanta qof oo af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalayna shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yiri dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ay nasaaran qof waliba hadadaaro hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run halla isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumay taas baa la naga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragno aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoys maanta Soomaaliya maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nim idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddida wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaan khasab maaha in maanta wax walba la isku afkarta waxa weeye tallaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karna maxaa ugu dhow ku wada heshiin karayna maxaa adag annagu xalay radaan nahay ilaa xalay ma kala sax maxaan dul qaadana halkeen ka gooyna maxaa aan contribution maxaan ku taraa shirkada inuu guuleysto oo noo guuleysano aad baan soo sheegay aad baan u hadal waxaan oo daran waran shirka iyo ummadda in sugaysa maxaa lagu guuleysan karaa intee imka la soo dhaweeyo heshiin karaa intee baa adag maxaa la qaad karaa marka idinkana waxaa deena labadu baa timeela tahay xil baad saaran maanta waxa ummadda dhuleysanaysa halkan idinkana sugan halkan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkan waa meel iska barakaysan oo in badan baa guul ugu gaaraa